gifted and Safi. Ramadan Mubarak. Holy records. Ramadan Mubarak. لكل مسلم. شهر الذي فيها ينزل القرآن. Happy Ramadan to all Muslims. For the Quran descends in this holy month. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، waa duruusteeni taxanaha noo ahayd aan uga hadlaynay ramadaanka insha allahu tacaala. anagoo duruus dhowra soo bixin insha allahu tacaala waajibnimada iyo qur-aan akhriska iyo waxyaabahaas oo dhan aan kaga soo hadalnay bisha ramadaan. duruustan tii ka horeysana hadda noo socotana waa fadaa'ilu ramadaan insha allahu tacaala. fadliga uu leeyahay ramadaanka in la soomo ay tahay, fadliga uu leeyahay insha allahu tacaala iyo fadliga ku dhex duugan. insha allahu tacaala caawana hadduu ilaa yiraahdo fadaa'ilu ramadaan waxaan kusoo qaadanayna insha allahu tacaala. bisha waxay tahay bisha rasuulka calayhi salaatu wassalaam wuxuu leeyahay awaluhu raxma wa awsatuhu maqfira wa aakhiruhu cidqu min annaar. bisha tobankeedii hore waa raxmad weeye, waa naxariis. raxmadda markaad arkaydo run ahaantii dadka inta badan waxaad moodaa inay waafaqayaan, sababtoo ah ramadaan ayaa kow ah marka la yiraahdo. masaajidada way camiran yihiin, waad aragteen. 2 iyo 5 iyo ilaa iyo 7 laga gaarayo taraawiixdoo kale aad iyo aad ayaa loo camiraya insha allah. wa awsaduhu maqfira, laakiin maqfirada marka laga hadlayo dad gaar ayaa iska helayo, sababtoo ah tobanka dhexe ramadaanka markaad fiiriso masaajidada in yar bay dadku macnaha ay usii kala siibanayaan, waayo maqfirada qof walba ma helayo oo dembi dhaafka ah. waa arintaas ayaa mucjiso ayaan ugu wacan. marka insha allahu tacaala tobanka hore waxaa laga yaaba weliba siba 5 ugu horeyso inay taraawiixdii wax walba ay soo camiraan, dadka masaajidana ay camiraan. tobanka dhexan waxaa laga yaabaa inay kasii caajisaanba meeshii la rabay, dadaal dheeraad inay ku bixiyaan, dembi dhaaf tiro badan ay alla weydiistaan inuu ilaahay u dembi dhaafo, maadaama dhammaanteen aan nahay kuwa dambaabayo. tobanka ugu dambeeyana ramadaan waxaweye waa aakhiru cidqu min annaar ayuu yiri rasuulka calayhi salaam. waa qofka naarta iska xoreeyo. marka in naarta la iska xoreeyo ama qofka laga xoreeyo waxay u baahan tahay dadaal dheeraada insha allahu tacaala. tobanka dambena aad iyo aad ayuu u kheyr badan yahay. waxaana ku jiro leylatul qadriga ayaa ku jiro. haddana sidoo kale waa in naarta qofka laga xoreeya insha allahu tacaala. marka soomaalideena badanaan waxaan dabeecad ka dhiganay in 5 maalin ugu horeydo ramadaan inaan masaajidada aan camirno, cibaadada aan soo camirno, waxay ka dambeeyana in yar aan uga siibano, ayadoo ugu dambeyntiina waxaweye qofka marka dambena uu kusoo dhacay meel cidla ah. marka insha allahu tacaala awaluhu raxma, kuwii waafaqa allaha naga dhigo. wa awsaduhu maqfira, kuwii waafaqa allaha naga dhigo. wa aakhiru cidqu min annaar, kuwii waafaqan allaha naga dhigo insha allahu tacaala. tobanka hore raxmad ilaahana waafajiyo, tobanka dembi dhaafka oo dhexena ilaahana waafajiyo, tobanka dambe oo qofka naarta laga xoreynana ilaahana waafajiyo insha allahu tacaala. sidoo kale taraawiixda marka laga hadlayo waxay leedahay muhiimad gaar ayay leedahay, fadaa'il badan ayaa ku sugnaatay. rasuulka calayhi salaatu wassalaam wuxuu leeyahay man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembih. waa xadiis saxiixu bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen insha allahu tacaala, labadaba ay ku wada yaaliin. man qaama qofkii istaaga ramadaana, maalinta ramadaan ama habeenkii taraawiix uu istaaga oo taraawiixs uu dukada, iimaanan asigoo yaqiinsan oo iimaan ay ka tahay, wa ixtisaaban asigoo ka ajir dalabsanaya ama ka xisaabanaya allah subxaanahu watacaala, gufira waa loo dembi dhaafi lahu maa taqadama, wixii dembi oo asiga ka hormay min dembi oo dembigiisa ah. dembigii asiga horay usoo galoo dhan waa loo dhaafi. marka insha allahu tacaala dhammaanteen markaan u fiirsano madnuubiin baan nahay, kuwa dambaabay baan nahay, dembiyada habeen iyo maalin ayaan ku guda jirnaa. marka insha allahu tacaala ilaahi hanoo dembi dhaafo. marka taraawiixda dembi dhaaf ayaa laga helayaa, salaatuleilkana lamid oo dembi dhaaf ayaa laga helaya insha allahu tacaala. keliya waxaad la timaadaa inaad iimaan yaqiiniso
oo ilaahay aada u ajir xisaabatay insha allahu tacaala dembiyada saas ayaa lagu dhaafaya. haddii lagu dhihi lahaa maanta waxaa lagugu leeyahay lacag tira badan, haddii arintaas adiga aad la timaado deyntaasoo dhan waa laga dhaafi, dib dambana lacag lagu siin aan deyn kuga ahayn haddii lagu yiraahdo maanta waa war oo aan wada fahmayno waaye. marka insha allahu tacaala maqfirada ilaahay waa arin aada iyo aada u weyn. dunuub tira badan ayaan soo galnay, inaan ilaahay aan u toobadkeeno, dembiyadaasna inuu ilaahay naga dhaqo ayaan rajeynayna insha allahu tacaala. marka walaalayaal lama soo koobi karo fadaa'ilu ramadaan insha allahu tacaala. fadaa'ilu ramadaan markaan ka hadlayno caafimaad ahaan waxaweye waxyaabo aada iyo aada ugu wanaagsan waa insha allahu tacaala. caafimaad ahaan markaan ka hadlayno insha allahu tacaala hal qodob keliya haddaan soo qaato, allah subxaanahu watacaala jirka bini aadamka wuxuu u sameeyey nidaamyo oo shaqo ayuu u sameeyey insha allahu tacaala. nidaamyada shaqada waxaa ka mid ah nidaamyada habka qanjirada insha allahu tacaala. qanjirada markaan ka hadlayno sidoo kale waxaa ka mid ah qanjir lagu magacaabo pancreas ama ganac soomaalida u taqaano qaarkeeda ay ugu dhawaaqaan. qanjirkaasi wuxuu soo saarayaa laba hormoon ayuu soo saaraya, hormoono badan ayuu soo saaraya, laakiin laba hormoon oo cagsi isku ah ayuu soo saaraya. idan qofka markuu cunto u qaato cuntadaasi waxaa ka buuxa maadooyin molecules aada iyo aada u tiro badan oo waaweyn, loona baahan yahay in la jijibiyo. idan qofka markuu cunto qaato markaan kasoo qaadano wuxuu u baahan yahay inuu ATP ama energy soo u heli lahaa energy uu sameeyo ayaa loo baahan yahay insha allahu tacaala. si tamartaasi waxyaabahaas loo helo enerjigaasi waxay u baahan tahay glucose ama sokor tiro badan in la isticmaalo insha allahu tacaala. marka cuntooyinka anaga aan qaadanayno carbohydrates ayaa ku badan insha allahu tacaala. carbohydrateskaas qofka markuu cuno oo la burburiyo ayaa dhiiga lagu darayaa. dhiiga markii lagu daro qofka dhiigiisii sokorta ayaa macnaha zaa-id ayaa ku noqonayso. then allah subxaanahu watacaala wuxuu ugu talagalay dheecaan laga soo saarayo pancreaska ama ganac laga soo saarayo kaasoo lagu magacaabo insulin. insulintaasi marka waxay sameyneysaa insha allahu tacaala in cuntadaasi wixii oo macnaha carbohydrateska ama wixii sokor dheeraad oo dhiigi dheeraad ku ah inay soo aruuriso, unugyada qaarkoodana ay ku qasabto inay xoog ku isticmaalaan. markay soo aruuriso denna in dib loo keediyo oo glycogen loo bedelo, sokor ceyriin loo bedelo, ayadoo lagu keedanayo baarka iyo murqaha lagu keedanayo. then allah subxaanahu watacaala ayaa ugu talagalay qofka bini aadamka 2 ilaa 4 saacadood markuusan waxba cunin ayaa loo soo saaraya haddana sokortii oo hadii laga soo aruuriyay jirka, taasoo dheecaan kale loo soo saarayo glycogen loo yaqaano. glycogen hormoonka aan dhacaankaas lasoo saarayo asna sidoo kale sokortii hadaa insulinti soo aruurisay ayuu asigana dib usoo dhalaalin insha allahu tacaala. wuu soo saaraya glycolyse ayuu ku sameynaya insha allahu tacaala si dib jirka uu isticmaalo, energy ahaan uu isticmaalo. marka ramadaanka waxyaabaha fawaaida uu leeyahay waxaa ka mid ah in qofkani sokortiisii marka horeba la keedin jiray oo glycogen loo bedelay in dib tamartiisa haddana dib oo u isticmaalo ilaahay subxaanahu watacaala u soo saaro. maadaama 11 bilood anaga aan wax soo cunaynay, aan soo cabaynay, sokor tiro badan aan isticmaalnay, laga yaabo 2 saacadood inaadan afkaagii aanan aamusnaanin oo waxle aad iska rogtay. marka insha allahu tacaala si caafimaad loo helo sokortaasi ceyrinta la keediyey ayaa dib loo soo saaraya insha allahu tacaala, qofkii oo markaasi caafimaad kasii qaadayo. maadada kale oo ay ku jirto waxay tahay fawaaida. caloosha mar walba waxbaa laga dabageeyaa, wasaq bay noqotaa. 11 bilood waxbaa la cunayay, marka maasha allahu tacaala waxaa loo baahan yahay in laiska faaruujiyo insha allahu tacaala caloosha. bisha ramadaanna waxyaabaha caloosha lagu dhaqay ka mid tahay. haddana hal mithaal ani aan ku siiyo, haanta biyaha adi aad ku shubato guriga ku taalo, haddii biyaha isaga shubto maxay noqonaysaa? madoobaad noqonaysaa, wasaq bay noqonaysaa, waxbaa ku dhex dhalanayo. marka insha allahu tacaala fawaaida soonka waxaa ka mid ah calooshaasi waxyaabaha qashinka iyo waxyaabaha haraadiga oo raashinka ku jiro in laga faarujiyo, qofkana gaajo uu dareemo, caafimaadkiisa ayaa ku jira insha allahu tacaala.
marka hadduu ilaah yiraahdo soonka fawaa'idiisii xag adduun iyo xag aakhir iyo xag caafimaad markaan u fiirinaba waa mid aan la soo koobi karin run ahaantii. Ramadaankina aad iyo aad ayuu u qiimo badan yahay. Saxaabadu 6 bilood ugu horeyso oo ramadaan markay ka baxaan waxay dhihi jireen ilaahayow naga aqbal ramadaanka, naga aqbal ay dhihi jireen. Kan kalena markii oo 6 bilood dambe ilaahay kan kalena gaarsiiyay dhihi jireen. Marka insha Allah taala ramadaankan ilaahay naga aqbalo, soonkeena kuwii la aqbala ilaahay ka dhigo, ramadaankiisa kalena Allah na gaarsiiyo insha Allah taala. Qof nasiib leh ayaa soo gaara insha Allah taala. Annaga ayuu ilaahay nasiib nooga dhigay oo maanta aan na soo gaarsiiyay. Dad badan ayaa hadda maanta qabri ugu jiro inay soomaan aad iyo aad u jeclaa, laakiin maanta aysan noolayn. Marka insha Allah taala ilaahay baan ugu mahadinaynaa nafsadeena baaqi noogu yeelay inaan soonana na soo karansiiyo insha Allah taala, muslimna naga dhigay. Allahaas ayaa mahadsan insha Allah taala. Inta xanuunsan Allah noo caafiyo, inta caafimaad qabtana Allah u ziyaadiyo. Muslimiinta oo dhan ilaahay dembiga u dhaaf insha Allah taala. Aad iyo aad baan idin salaam. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.